xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayro iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isla markaana xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed مسؤولين كترسان مامل كوفر قلبه وجامينه شريف حسن شيخ آدم مدحونها مامل كوفر قلبه حبنا كترسان قلياش مامل كاسي يقيبها كل الدول بالشدة هي سهر سرعة وصول ويجرون كديارها إيش تجوده مقالة بيدابو رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية يوفق سوى حكمتها قلياش إذا ماذا قلب كسدا وحين مقالة وقيب قلي دونان شركة قلها أمنية قرن كوسد حديد بلاد مر لقبته وعنا لوجا رئيس دونا أما لوجا هذا لدونا guulihii ugu dambeeyay laga gaaray xagga amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa barnaamijyada lagu xoreynayo dalka kuwaas oo dalka looga saarayo maleeshiyaadka ragaxisada al-shabaab wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxay u dhacday soo dhaweynta sida tan shirka golaha amniga qaranka oo saddexdii biloodba mar la qabto ayaa magaalada Baydhabo waxay martigelinaysaa markii ugu horeysay waxaana ka qayb galaya ama golahaasi kamida madaxda dawlad goboleedka xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale marka laga yimaado arrimaha ammaanka looga hadli doono tubta siyaasadda loo dhan yahay oo dejiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya taa oo looga arrinsado ama lagu faaqeeyo sidii loo hirgelin lahaa doorashada 2020ka waxaana shirkan marka laga yimaado arrimaha ammaanka looga hadli doonaa sidii suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ay dalka ka qabsoonto sanadka 2020ka Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Baydhabo